بسم الله الرحمن الرحيم. كبديتي كبديتي معناه وحويان خش إيموديغي ديجان دي غش الصومالي وحويان حول جعالك الدنيا جعالك أما إيمان لأن تبا ولا رضا يعني قرآنك waxaa loo yaqaanaa ama af carabi waxaa loo yaqaanaa kibidite takaasur ilaahay quraanka waa ku yiri alhaakumu takaasur marka xoola jacaylka dadku adduunyada ay aad u jecel yihiin ayaa la dhahdaa kibidite tusaale wuxuu yiri c'est un monde dans lequel le fanatisme et la cupidité marchent côte à côte wuxuu yiri waa adduunyo dadka dambiilayaasha amba madaragtaana xag jirnimada iyo diin xumada iyo adduunyo jacaylka ay iska rab socdaan ayuu saabulayso tusaale wuxuu yiri sitaamadu adduunyo weeyaan don lekel taasoo le fanatisme xag jirnimada oo dadku diinta madaragtay maxaan ku raday si xun ugu dhaqma amba de extremismiga la dhadaa oo kale marka fanatismigii waxa iska rab socday buu la kibidite iyo adduunyo jacaylkii marka adduunyadii maanta waxa loo tartamaya waa lacag iyo waxa la isku daray waa lacag diimihii iyo mushkiladiina waa la isku haystaa labadaas ayaa iska rab socda saas ayay ka dhigan tahay kelmadan kale haysan waxa weeyaan culinaire waxay ka dhigan tahay qui a rapport à la cuisine waa wixii cuntada la xiriira waa markaa wax cunto oo dhan wixii la xiriira ayaa raada tusaale wuxuu yiri culinaire waxay ka dhigan tahay waa cilmiga iyo fanka iyo wixii la xiriira oo dhan aqoona madaragtaanay cuntada ah marka cuntadu wax is loo barto ay dadku bartaan wax la cunay haday noqoto wax la karnay haday noqoto waxaas oo dhan waxa la isku radaa culinaire kelmadan kale saddexaad haysan waxa weeyaan la culpabilité macnaheedu waxa weeyaan état d'une personne qui est coupable marka culpabilité waxay noqonaysaa oo kale dambiga ama waxay noqonaysaa qofkii oo isbada inuu isagu dambi leeyahay ama dhibaatada uu qabo iyo iscilbadada kalena way noqonaysaa marka tusaale ahaan laakiin waxaan ka haysanaa niye sa culpabilité yani wuxuu iska diiday qofkani oo uu dafiray intii uu ku lug lahaa dambiga iyo madaragtaan intuu soo ka soo galay ama dhibaatadii ayuu dafiray oo inta uu qaadan waayay culpability-giisii ayuu dafiray tusaale kale waxa weeyaan sentiment de culpabilité yani waa dareen qofku moodayo inuu isagu waxan ka dambeeyo qof waxa jira isagu dambi lahayn ama matalan tusaale ka soo qaadba inan ba isdilay markuu dhintay hooyadii waxay moodaysaa dilista uu isdilay inay iyadu sabab ay u hayd matalan inay dhageysan weyday inay jacayltu si weyday inay madaragtaanay hooyanimadii ay u buuxin weydo kale ay moodaysaa sida dadka jacaylka oo kalena isqaba matalan ama isjecel haday kala baxaan ama haday kala dhintaan oo kale qofkii qof baa is oranaya sababtaasi ay taa u dhacday anaaba ka dambeeyay marka wuxuu dareemay qofkaasi waxa la yiraahdo sentiment de culpabilité kelmadda kale ee afraadan haysan waxa weeyaan la consistance waxa weeyaan permanence ama stabilité waa joogtaynta weyn wixii laga dhigo wax joogta caada laga dhigo weyn tusaale wuxuu yiri c'est un esprit qui n'a point de consistance wuxuu yiri waa fikir amba waa ra'yi aan go'aan bilahayn yani qofka kolba isbedbedela kolba fikir kolba go'aan qaadanayo kale ayaa loo isticmaalaa waxa la radaa c'est un esprit qui n'a point de consistance yani waxa ka dhantahay waa qof bila go'aana conviction macnaheedu taa kale waxa weeyaan kelmadan kale waa certitude colonna de la vérité de quelque chose conviction waxa la radaa yani qofka uu moodayo inuu wax rumaysan yahay amba ka dhaadhacsan tahay waa waxa qofku aaminsan yahay ama uu moodayo af carabi waxa loo yaqaanaa danni uu moodayo bay ka dhigan tahay waa wuxuu aaminsan yahay isaga ka dhaadhacsan tahay af Soomaali waxa loo yaqaanaa danni af carabina danni baa loo yaqaanaa tusaale wuxuu yiri conviction religieuse ou philosophique yani waa male amba waa moodasho diin ahaan oo kale saas la moodayaa ama philosophique amba filosofiyad oo kale wax saas oo la moodayo yani waa qof matalan ama ha noqdo qof caalima amba ha noqdo qof filosofa wixii isagu aaminsan yahay oo kale ka dhaadhacsan tahay oo kale weeyaan tusaale oo kale Descartes wuxuu tusahay in ay jirto wax la yiraahdo
maxaan ku rahday complex dedem wax la dhahdo ayaa jirta buu yiri oo ka dhigan inuu ilmuhu wiilku uu hooyada jeclaado ay gabadha yarna ay aabaha jeclaato waa nacam waa ilmo ayaa jeclaanaya aabihii sex opposite uu jeclaanaya yacni hadday matalan uu ilmuhu wiil yahay hooyada ayuu jeclaanaya hadday gabar tahayna aabuhu jeclaanaya marmarka qaarkood saas oo kale waa la arkaa marmarna lama arko oo inanku wiilku waxa dhici karta inuu aabihiis ka jeclaado gabadhuna hooyadiis ka jecesho laakiin inta badan waxaa la arkaa habluhu inay aabaha jecel yihiin wiilasha yarna hooyada ay jecel yihiin waxa la dhahdaa complex dib la dhahdaa markaas kaar baa saa tusay marka wuxuu isagu aaminsan yahay daween waa conviction philosophique baan odhanaynaa tusaale kale wuxuu yiri les juges demandent la conviction du poisson ragga xaakimiyadu iyo madaragtay maxkamaddu waxay dalbadeen in madaragtaanay la xaqiijiyo oo qof rumaysan inuu jiro sunkan in la xaqiijiyo ay dalbadeen marka wax dadka aaminsan in la sumay matalan qof ka dhintay in la soo xaqiijiyo ay dalbadeen kelmadan kale waxa weeyaan compassion waxay ka dhigan tahay waa naxariista pitié baa la dhahdaa waa naxariista iyo kalgacaylka weyn tusaale wuxuu yiri elle avait pour son mari une compassion très forte naagtan odaygayga waxay u qabtay kalgacayl iyo madaragtay naxariis badan ayuu qabtay tusaale wuxuu yiri il jetta wuxuu ku tuuray oo ku eegay un regard de compassion il naxariis leh ayuu ku eegay oo malgré petit enfant ilmihii yaraay miskiinka ahaa ee tacabsanaa il naxariis leh ayuu ku eegay kelmadan kale waxa weeyaan la célébrité waa caanimada waa réputation ama personne célèbre tusaale wuxuu yiri il fit un temps une célébrité médicale ninkan beriba waxa jirtay oo ha caan xagga dhakhtarka yacni doctor ee loo yaqaano caana ayuu beri habay ka dhigantay tusaale kale wuxuu yiri la célébrité c'est d'être connu de ce que vous ne connaissez pas caanimadu buu yiri waa inay ku yaqaanaan dad aad u garanayn ayay ka dhigantahay kelmadan kalena u dambayso waxa weeyaan la curiosité macnaheedu waxa weeyaan grande envie de savoir des secrets waa qofka oo wax walba inuu ogaado doonay curiosité waa wax walba ogaasho weeyaan tusaale wuxuu yiri la curiosité est un vilain défaut curiosité nimadu waa wax dabeecad xun oo fool xun weeyaan way wax walba haday isku daydo inaad adu ogaatid inaad maqashid inaad lagu sheego marmarka qaarkood wax fiican ma waxyaabo waxa jira in la dhex galin ay habboon tahay intaas ayay ku dhantahay maanta